السلام عليكم أصحاب فوزية كوميديان كوضع حيران مانتا وحائلي جوغان هذا البضل الموسيقى عبد الشكري وسيدة وتقانتين وجلاي وين إيو هذا دايما هذا دايما لي دايما فنان يسأل ويغني دايما بلادنا تنزانيا هوجي تنزانيا أجيش واتجي دونا هذا دايما أسلي ودي جوجنا ما شاء الله ما أنت وحاول كفتن إراحة وحول بالسويدينا وحيالا بريا راحة دميل وحا أنا واقعنا الغضب عشي ما أنت ما كسر نوضة أنا وحنا رانا كفتن يوم محاتري راحة ترمو قراحة قراحة أيد لقيش راحة نتري لا أوت نوضة مود أوت تنزانيا هوجي دونا دار السلام إن شاء الله إن شاء الله إن أصحابتا sida ni sheegay waxa waaye wada kaftameena social media bariyaha waxa ka wada socdaan ka wada hadlayna inkastaan iyo hodan dumarno nin ragna ag fadhiyo ma sha Allah boqolow jilaaga weynaa waxyaalo badan is weydiinayna way abdi shukri ku soo dhawo walaalkay wax badan is weydiinayna maanta bariyaha waxa ka socda social media oo lista ordaayo heblo waa la soo dhigay heblaaya la soo dhigay rabaa heblo waa la soo dhigay hata wiilasha bariyaha lagu daray ragga waa la keenay waa la wada keenay TikTok ninka sameey ilaahay maxaan dhahay waa horta waa mahadsan tahay waa ku dhownahay channelkeena Fawziya Comedian gabadha kaliya oo Soomaaliya oo haddana dad ajaanib ah ama Kenyanka kale oo anaga afkeena ka duwan oo Kiswahili ku hadla ama Englishka waxa la jisha oo noogu jirto weey aad baan u salaamayaa waan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo aniga waliba walaashay qaaliya iga yar hodan oo ayadana farxad ii tahay inaan groupkeeda ka mid noqday oo channelkeeda laftigeeda aad nagu arki doontaan riwaayado badan filmaan badan sheekooyin badan sida kanba oo aan naga soo muuqanay kaasna uga soo muuqanayno waliba waxa weeye waa hodan honesty official ba ugu qoran waxa idin leeyahay ayadana honest official hoosa la soo dhigaa insha Allah ayadana noogu subscribe-ka waliba asxaabteena walaashayda channelkeeda channel weyn ajaanibta ma sha Allah waxaan leenahay dhag noosi wayay waxaad i weydiisay waxa socda horta wax maanta noogu horeysa maaha si fiican waa wax sanadeedii soo socdo dhan si fiican soo baxayay weeye badanaana waa ka hadlo anigu gabdho badan oo la keenay waa ka hadla si fiican tan ugu dambeysayna ka hadalkeeda xogaa waa ka gaabsaday sababtoo ah markaa hadashid qofka muuminka in godka laba jeer laga qaniino ogaa waa laga fiicay aad baa aniga ila xuntaa in gabar walaashaya haddii ay laga duubay haddii ay iska dubtayba la wareejiyo la buunbuuniyo aad bay iga xuntahay ayadana waxaan leeyahay walaalle qalbiga Allah kuu qaboojiyo ha ku noqon waxaad tusaale ku qaada ayaan leeyahay oo kaba baxba social media kitaabkaaga qaado ilaahayga isku xir ka toobadkeen intaas de bili aadan baa leeyahay waa la khaldamo Allah baan leeyahay waa wax aad iyo aad ila xun ma arag nimankii samaystay oo dhinacan u ka yimid TikTok صح anu oo sidaana ma arag inkastoo TikTok aanu ku badnayno qof mar dhif aan la soo galgalo oo yiraahdo kaalisaan ii dheedheemooy laakiin iguma badna aad baan uga xumahay gabdhaha walaalahay oo walaashay oo hooyadii waa habarirtay okay hodan adina maxaa ka dhihi lahayd horta waa maxaad ku waanin lahayd waa ku faraxsanahay inaad janaalka maanta walaashay Fawziyo ka soo muuqano ma sha Allah waa qofta kaliya ajaanibta wax noola jisho waa qof kaliya jecel inay horumar suubiso waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo agtaada soo fadhiisto adiga abwaanka weyn ee jilaaga Nairobi ninka ugu jilaysan ugu qalbiga wanaagsan ugu naxariista badan jecel inuu dadka garab qabto horta waan ku faraxsanahay inaan maanta labadiinaba la fadhiyo ma sha Allah waliba si gaar ah isaga amaan iiga mudan oo garabkayga istaagay meel adagna iga soo qaaday oo hiroodanay hadii laga tagay anaana ka tagaynin garabkaagana taagan ma sha Allah horta ku faraxsana anoona wax uuna igu xirin waxna aan isweydiinin garabkayga taagan janaalka ii furay yiri janaalkaaga intuu ka ayo garabkaaga ahay maalinka horumar gaartayna deeada horumarkaaga gaarsido yiri ma sha Allah maadsani waan ku faraxsanahay inta soo ma ma sha Allah sidii soo kale horta ku dayeesho muday Soomaaliyeed inaa ku dayatiin inta xasitaa wax ma gaaraysid ninkan wax horumarka gaarsiiyay waa qalbiga nadiifka ah saasna uma moodi jirin oo waa arki jiray Cabdi Shukri meelaha ku arki jiray laakiin se waxaan ka aaminsanaa
nairobi hadda dadkii aan ka barto oo kaleeto qalbiyadooda kale laakiinse qofka ha qiimeynin qolofta la kulan saa u maasha allah maadsani marka horta waxaa ku leeyahay gabadhan soomaaliyeed oo ceebteeda la faafiyey hadduu ilaahay iyada ku qaaday inay intay isqaawiso duubto waxaa laga yaabaa qofka horta ka duuba qof yar ma ahayn sida lasoo bandhigay nin weyn oo dhali karo uu ahaa uu ka aqli badiyey dumarkana waa iska qalbi yar yihiin oo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay inay feerta ragga laga abuuray adduunkana hadda markii lacag lagugu harqiyo oo dumarna tahay adduunka kuwii lacag ku dhaho noloshaydii baan ku siiyey laga yaabo inay nafteeda saas ugu hibaysay lama rabin marka asaga haddayba ilaahay iyada shaydaan ku qaaday ayba asagii u dirtay in uu faafiyo ayadana waxaan leenahay qalbiga ilaahay kuu qaboojiyo tan waana qaasaha kuu noqoto annagana waxaan rajaynaynaa inaan intanada kale dumarka waana noo ahaato ku cimri qaadano ayadana qalbiga ilaahay u qaboojiyo sida walaalka sheega miidiyaha ay iskaga harto ilaahay u noqoto ilaahayna isku xirto maqaldama waa ilaahay qof bini aadan qaladku waa ka dhacayaa markay xabiibiye ahayd bay qorneed horta waxaan wax qoran bay ahayd oo markay ayada xabiibiyaa loo qoray inay sidaas noqonayso aysan ku dhacayso marka naf go-dob waa laga samraa toobadkeen ilaahay toobadiisa waa bannaan tahay meeshii ay wax kugu dhaceenna waxaan kuu rajaynaynaa inaad ka haajirto waa miidiyahoo kaleeto meel wax kaa gaareen waa laga haajiraa hadda ceeb waa laga afmaroojisay dhowr beriyaa lagu wadayaa soomaalida inta xuntaa ku wadayso waxaan rajaynaynaa ayakan inuu ilaahay soo hanuuniyo ragga soomaaliyeedna mid aa uga digaya gabdhaha walaalihiina xataa hadday inku aaminaan boo ilaahay ku qaaday ina adinka faafisiin ma aha kuwii asturi lahaayaa tihiin gabdhaha leedihiin way in la dhasheen walaalaa qabtaa hooyaa qabtaa waa guursan rabtaa inay kuu dhashaa rabtaa ceebtaada astur ilaahay ceebtaada qof markaa asturto 10 ceebood ku asturaya ogow maanta ninkan qaawiyey ayadaa ka asaga ka dhib badan bariye ku imaanaysaa dhibkaas laga yaabo hadda inay ama walaashiis ku dhacday ama hooyadiis ay ku dhacayso ama maanta caawadan ay taaganahay uu dhiban yahay oo ilaahay uu masiibo kale gurigiisa kala kulmay marka ilaahay qalbiga u qaboojiyo waxaan ku leenahay dadka waa salaameynaa ما شاء الله ومحسنت هذا عبد الشكر سؤال لوضع كويدينا حتى هاي هدول ولا ما يوتيوب لوضع سميت دورة نبى للدلاية كي للدل هاي يوتيوب كورتا horta waxaan waa media oo dhan muuqaal weey waa muuqaal gudbiyaal weey صح af Soomaaliga waa wixii muuqaalka soo gudbinayay weey صح anigu midna ma dileen laakiin dadka waxaan oran lahaa adinku sidii idin roon raaca maya waxaa lagu dhahay mid dooro mid baa la dilayaa election camal waya youtube-ka aniga ayaan laga dilin youtube-kan leeyahay okay hodan adigana ani wallahi horta meesha igu weyn waa tiktok tiktok sida wax ugu soo gudbisid waay moogtay media adiga fikradaada saa ku soo gudbid hada xumaan ku soo gudbis xumaanti lay ahaanay wanaag taas ku soo wanaagi ma sha Allah marka waxaan iska dhihi lahaa tiktok waa aalada galiyo youtube xataa ka dheerays ما شاء الله sababta anigu iri youtube-ka waxa nafacooda la fiiriyaa صح nafaca ay leeyihiin oo ka soo gaaraya صح aniga nafaca waxaan doortay youtube-ka naficiisa hada uu dhadhami cabdi shukri doortay sababtoo ah guryaa laga dhisan karaa gawaari baa laga gadan karaa waa laga xajin karaa sida aanu aaminsanahay waa anigu hadda sida ugu dhaqmayo sheekh ma ku sheegay laga xajin karo ma waa ka xajin karaa waxaan gudbinayo ku xiran tahay يا waxa ku guriga hadda marna waa laga xajin karaa marna lagama xajin karayo yeah mar haddaan sida diinta lidku ah aan keeno lagama xajin karayo laakiin markii wax wanaagsan aan keeno aniga kale waa iska wacyigelin waa ruwaayado wacyigelin baan kusoo bandhignaa laakiin youtube-ka anigu waxba ii leeyahay dhaqaale ii leeyahay laakiin kan la yiraahdo tiktok dhaqaalaha xataa laga samaynayo nin doqowe kirli halkan ku sita afka qaata ku haysto waa ka siinaya gabar afka ukun ku haysta gadaal u jeesanayki walaalayaal wax ii gada diyaarada igu dhufta gantaada beeba ku dhufta kan waxaas lacagta lagu keena xataa aniga lama qurux badnaa waa xaraan sida la sheegay shaqaashay sheegeen aad iyo aad waxaan ku dhihi lahaa waxaan ku weydiin lahaa abdi shukri af Soomaaliga igu yarayo maxaa dhihi leed dhalinyarada sidaada camal oo gabdhaha muuqaalka ka xun kasoo gudbiyo oona marna la dhasheen marna hooyadood ay tahay marna ay qabaan maxaa dhihi leed maxaan ku wacyigelin leed kuwaanin leed horta gabdhaha waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan madaxaad aniga ahaan cabdishukur aan ii saarantiin sidaan horey u oran jiray gabadh kastana waxay la mid tahay ta ila dhalatay ta i dhashay
iyo tan eedada iyo tan habarirta ila mid tahay maasha Allah marka gabdhaha waxaan oran lahaa horta adinku iyaysan markii labaad nani ka qaniinin hadda waa mar koowaad baan oranaynaa mar labaad yaa nani ka qaniinin kuwaas kalena waxaan leeyahay da-da amaanta tihiin ma ahaanaysaan way soconaysaa waad gaboobaysaan waa la tegayaa aakhiraa la tegayaa meel lagu xisaabtamayaa la tegayaa adduunka haddaan lagaaga jarin kolley waa dembi bini aadan ah ka gashay si fiican aakhiro waa lagu soo hortaagaya miisaankaaga marka waxa xasanaadka oo naaqusinaya waxaan oran lahaa ka fogaadaan oran lahaa maasha Allah gabar kastana waxaan oran lahaa ha samaysato inay halkaan mid noogu dambeysay oo gabdhaha xaggeeda aan ka oranayo waxay tahay aniga wiil ahaan war tii idinku dambeysay oo idinku dhacda taas ha ahaato waan oran lahaa kuwa hadda ku jira booska walaalle soo haysana joog ka joog baan oran lahaa kan hadda booskii hebelka hore wax duubay waa hadduu asaga duubayba waxaan oran lahaa ka daa cabdishakuur mistire hadda tiktok oo meel kasta wax markay Soomaali wax ku dhacaan markaas waa lagu wadaa yaa maxay heesti u heesay بريان تيك توك كوالين صبرك إنه سوق هذا قضاء سارة له ولا جا قردرين يا هاي ولا جا قربحيا مدل لو عضو يا هذا الشيء كده سيد اللي يكسرونه قنيسة هذا كورنا فرماتش وصارين ولا جا قربحيا مركا حلا قربعيد أنت رضا بدنا بالهلا جاي يا نبومبو من بالنا يا نبومبوني وحي مركز سيد يودعان سيد هالوجوجيو وي ساسمع هيا ولا شيء أدينا قبلها سيد عمل محلي لا تهضني وقدم بيسي ما شاء الله horta waxaan leeyahay intaan waanaha noogu ahaato midna waan ku darsan lahaa qofka muuqaal xun markuu soo dhigo yaaba la qaadinbo si fiican bataatan hadaa la qaadi lahayn oo Soomaali ay buunbuunin lahayn heerkan maanta aan joogno maba ay gaari lahayn waxaan rajaynayaa inuu tan noo noqoto cilmi qaadasho insha Allah anakana ceebaha naga Ilaahay asturo ceebta soo socotana Ilaahay naga hayo amiin okay waa mahadsantihiin asxaabay intaas iyo kulanto wacan oo kale waad ku mahadsantihiin aad baa mahadsantahay laftigaadu adigana waa mahadsantahay soo dhawaada sidaas aan ku soo gagabeynaa Fawziya comedian